صحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بما هذا السلوك كاني مدشن يقوم قيمة له إنه ما أنت وجود بالدق إنه دافور كأو سياسات كعصب إهلا إلهي ذا في كهلا قولنا كهلا دل كورنا كهلا حسب الغلا النقطة إلهي أكذبه وحنسول ويننا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتان صاحب كي ولا الكي إن كان أبتدأ وهاي رنتي ليمن عقليسي أقوتيسي فكرتيسي وأجنبيسي إنه دلكيسي يدكيسي وحوطه أو أساسه مانتا أوركا عصب وحنولين هاي بروفيسور أحمد أبتي أولال وإنادر شورور dalkaaga iyo dadkaaga umbaad gudihiisa iyo dhexdiisa qiimo ku leedahay waxna ka noqon karta inta dabadooda walaalayaal munaasabad qaaliya hoos walba hadal leh halkan maanta waxaynu u fadhinaa inaynu una ducayno soona dhaweyno una hadallo inaynu rabno inuu siyaasadeedka hilaaco soo baxo biidnillaahi tacaala haddaan nahay axsaabta siyaasiga ee la erinayo sida gaar ahaan kuubiyoon ka mid ahay iyo ciidiyo wadan iyo saddex xisbi qaran baanu nahay inaanu sii jiro oo weligeey annaguna joogo waanu jecelahay laakiin ay ku jirtaan go'aanku shacbigu ku jira shacbiga ciday doonaan dooranaya annagu sharcigaanu marka qaarkood oranay ayaa la furin ururadu ha iska sii joogaan weligeey ha joogaan annagu aanu joogno 23 sano markaanu dhacrabaanu soo noqono aanu iska sii waan jecelahay laakiin shacbigan yeelay waxaad ogtihiin 2002 ayay ahayd markii ugu horeysay ee ururada Soomaaliland ay ka hana qaadeen ee la furay xisbigii uu aasaasay Allah ha naxariisto marxuumkii Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal una dambeeyay madaxweynaheedii daayirayaal ka ahayd ayaa fuliyay go'aanka dastuuriga sharciga in 2002 December ay furmaan tartan urur siyaasi lixu siyaasi baa tartamay saddex baa soo baxay saddexna way dhaceen kama kala dhaco dhulku ma wala iska soo tooso wala iska kacaboorku ma la iska tuma laba xanaaqo saddex urur siyaasi baa dhacay gaboosa mid hogaaminayay gudoomiye Saleeman baa mid hogaaminayay mid Umar Ataa hogaaminayay qolku iska tumay waana banay saaxada saddex xisbi qaran baa soo baxay oo ahaa xisbigii urur xisbigii kulmiye iyo xisbigii 2012 ayay ku guurtay saddexda xisbi jiritaankooda xisbiga kulmiye kala hayay too cidina ku jiro saayma kaba loo erganay wuxuu kulmiye ku aasaday arrimaha dastuuriga sharciga inaanu ka baydin ee uu fursad siiyo shacbiga reer Soomaaliland si ay u xushaan cidda ay doonayaan mar kale waxa tartamay ururo iyo xisbiyo qof wal oo halahaaba oo hankiisa iyo dareenkiisa iyo wixii uu doonayay himilada siyaasigiisa uu ku soo bandhigay mar kalena saddex xisbi qaran baa 2012 inoo soo baxay kuwana saaxada ku jiray xitaa nasiib darro way ka baxeen sida xisbiga urur waxa la joogaa 10 sano kale ee mar kale saddex xisbi qaran ay soo bixi lahaayeen 2022 way waa fursad shacbigu leeyahay waa fursad ummadda Soomaaliland leedahay waa fursad qofka siyaasiga leeyahay waa fursad uu leeyahay qofka aragtida leh si uu aragtidiisa shacbiga uga iibiyo si uu u noqdo xisbi siyaasi sida Professor Ahmed Ismail Samatar oo kale walaalayaal arrintaynu maanta u fadhinaa maaha arrin riyaa axsaabta siyaasaddu ee kulmiye ka mid yahay ee u cid ka mid yahay ee wadani ka mid yahay shacbigu iyo dareenkan ummadda yay been ka sheegin ururadu way furmeen waana la tartamayaa fagaaraha aynu keeno waxaynu xisbiyo ku sii ahaan lahayn hadduu kulmiye iyo hadduu cid yahay hadduu wadani yahayba waxaynu xisbiyo ku sii ahaan lahayn aynu dadka ka iibino aynu keeno buuq iyo qayl ma jirto ummadun baa codayn shalay ummadda ay noo codaysay oo xisbiye naga dhigtay maantana ummadda ayaa inta ay doonto xisbi qaran ka dhigi doonta taasina ceeb maaha xumaan maaha waa wanaag
أي مدركينا أصوبا منه سياسة يوحى أي مدرك كيبين كما فرقين كلا كرسي قفنا حول كما فرقين كلا قفنا كرسي حول يقول منا عظم بالبينا دا عدكاو أحمد ما أنت دوني بوصول أحمد اسماعيل سبتا إنه حزب يكون أبوه إيو حضرته سيدوني إيو عداش دوني إيو قبوس دوني أي شرعي وعي يكومي إيو ديرو دوني أي هرمي أحسابه نقلين ما أنتنا حتى يدد كل جد عليه كوة كلهم بيدون ولا ريال انت ساتو دافي ومدين ويبسلاتي وحينو بسل لهاي إنينو لهاي أمد مانتا ظروف هذا انت يكون لهاي كتب على وحينو لهاي أمد بسل سيدنا الجليل ولا خلهاي وحينو لهاي أمد بسل إيه أقولها كذا يهديها يقفك ميل سوي قاعدين كذا إنه يقطع كيانا إنه خير يتطور كذا وحينو لهاي أمد بسل إنه مركينه وحالنا حالات كأرجو حالات كذا ينقصار كذا دبدنا طول هكذا سيدروتي تاجنا هاي وحنا هاي قفوا بني آدم ولا سميه ذلك بني آدم كي عقلها سجال بالأرض الله بشال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم قفك بني آدم كي مركا هو الشكل يخلقها موقع تفهم بني آدم لكن فسياده ونقصه في التكلل محاضرك أصوبا نجسا محاضر هيسا الكلب جينسا واحد يدخل بعيد ولا ليال موسم وحي كتر وقت السياسية ويضدك عغانيان عدي أي دوليين أحسابت السياسي جاي من كتيرتا أو رئيسكو بدل يسبشن شون دماغ كيدا أو هذا أصوبة ترتميان أو كأي ضدك دورتا صوب حيو goobta umadeenu way u diyaar galowday annaguna hadaan xsaabtinahay xisbiga loogu wax sheega badan yahay waa kuwiye waayo taladii dalku haya waanu ogolahay xalaaliyo xaqladaan iyada sheegay waanu qaadanayna hadana dadka waxaan oranayna walaalayaal hadaan wax qaladnay waanu sixi doonaa xaali naga ahaada marka la codka nasiya deesaasaynu ku tartamayna saasuu professor Ahmed ku soo baxaya بروفيسور أحمد محستا أقام إيا أرتي إيا هبلا ومدي سيد ملكم يرهبوا ومدى إيجيسا إذا عطسين إسقى قبوسة حقلتوسي عطار كرمية أولي وضاني كان يتوصل سين مينو بروفيسور أحمد بين ما تلطوا مينا أولادها إن شاء الله حسبي سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحد ويبيتها ما تينا كسوق يبقوا مناسبة لغدا فريو قرر سياسات كهلاع هل أحمد إسماعيل سمتربان كورانيا هل سياسة كورانيا هل أنيقا إسكور رميا هل أحمد إسماعيل سمتربان كورانيا وقويها وين وقرن كان مقع وين يماموس كله wuxuu joogaa daadii uu soo ritaayay garoobay hadduu maanta garwaaqsaday inuu ummadiisa cimriga inta ka hadhay ugu deeqo waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan fiican buu sameeyey raganimadu baa la yidhaahdaa waa inta reerkaaga ka soo hadha nolol fiican buu ku noolaa dhul wanaagsan buu iska joogay muxuu ahaayey qaxarkaa iyo dhibaatada lacagaha soo geliyey maanta wuxuu garwaaqsaday in danta ummadiisu ku jirto waa ku bogaadinayaa waana ku hambalyaynayaa waxaanan leeyahay oo kula talinayaa sabir iyo dulqaad inuu dugsado jidka uu qaaday maaha jid hawl yar waa jid xogtin badan waa jid xagasho badan waa jid qodxa badan waa jid lama sabidi doono la caayi doono la maagi doono been laga abuuri doono jidkaas ayaa dooratay adkayso baa ku leeyahay siyaasadana haddan ka odhanaya dadka qaar baa waxay yidhahdeen siyaasaddu politics is a dirty game halku dhiggaas oo aan sax ahayn kalimatu lxaqi yuraadu biha albaatil siyaasaddu waa aqoonta bulshada lagu maamulo siyaasaddu waa ta isdhaafisa dadka
ummaduha iyo hogaamiyaashu iyagaa doortay jidkay qaadayaan siyaasaddu dhammaanteed ma xuma waxay leedahay mid taban iyo mid togan dariiqa tabani waxa weeye dariiqa hogaamiyaasha xume ay qaadaan waa dagaalada sokeeye burburka hogaamiyaal ummadooda xasuuqa musuq maasuq iyo wixii la mid ah dalal badan oo dunida ka mid ah baa dariiqa qaaday siyaasadda togan ee fiicanina waa dunida dalalka dhisma ee maanta isdhaafay inaynu siyaasiyiin badani tartamaan ururo badani soo baxaan ummadda waa u dan oo la kala doorto sida sayradda marka loo yimaado xoolaha la iibsanaya aynu kala dooran jiray siyaasaddu waxa weeye cumar bin khadaab baa wuxuu yidhi in allaha yansicu bisuldaani maa laa yansicu bilqur'aan waxa awoodda lagu bedelaa waxaan qur-aanku bedelin qaaradda afrikaynu ku noolahay 7 bilyan iyo barka dunida ku nool 1 bilyan iyo 200 weeye dadka afrikaanka ee madow ee aynu ka mid ka nahay dhulkaynu ku noolahayna waa 30 milyan oo kilomitir isku weer waa dhul barwaaqa oo khayraad badan leh dadka afrikaanka tirada dunida waxay uga dhigmaan 17% dhulkeeduna wuxuu dhigmaa 20% dhaqaalaha adduunkana waxaynu ku leenahay 2 trilyan iyo badh 185 trilyan ee adduunka GDP-giisu marayo waxaynu dhaqaalaheenu dhigmaa 3% halka waxa ku muuqanaysa afrika waxa sidaa u galay iyadoo dhaqaale leh iyadoo khayraad leh waa hogaamin xumo waxaynu qaadnay jid qaloocan ayaynu dhammaanteen qaadnay inteeni badnay halku dhig baa wuxuu yahay we all make choices but in the end our choices make us dhammaanteen waxaynu kala dooranaa dariiqyo laakiin dariiqyadaynu dooranno ayaa nolosheenna jaangooya siyaasadda yaan laga bixin siyaasaddu maaha wax xun waxay u baahan tahay dad wanaagsan inay soo galaan hadday kuwa xumi soo galaan oo kuwa wanaagsani ka baqaan waxaa talin doonta inta xun iyo inta faasidiinta siyaasadda intaasaan ka odhanaya waa soo dhawaynaynaa bahda ragga siyaasadda ku soo biiraya boodda jaradkeeda waa soo dhawaynaynaa waxsaanu leenahay waar baashu ma gelgelin yara adkaysta baanu leenahay wax cidla la iska helayaa ma yaallo dalqada wax lagula soo kala baxaya dalqada ninkii diyaar u ah dalqada inuu wax kala soo baxo ayuubaa siyaasadda soo geli karaa hallaana iska odhanaya axmed ismaaciil samatar waa anigaa ka warramay waa nin ku mudan inuu qarankan hoggaamiyo waa ragga qurxinaya siyaasadda maanta somalilan isaga iyo cabdirasaaq cataash iyo xagla toosi iyo raggaas oo dhammi siyaasaddeennu way qurxinayaan siyaasaddeennu waynu u baahannahay qaran la wada leeyahay aragtidaasi waa aragti runoo beena aan ahayn oo aan laga warwareegayn maalin dhaweed baan boorama tegey waxaan ku jiraa marxalad adag xisbiga kulmiyana musharax baan ka ah kulmiyaan ahay munaasibaddana saasaan ku yimi waxaan tegey boorame xoog baa laygu soo dhoweeyey raggaannu siyaasadda isku hayno raggu biyo hoostood buu iska haraatiyaa waryaadha raggaannu siyaasad isku hayno baa dacaayad beena meelaha mariyay oo yidhi maxamuud wuxuu wax la wadaa axmed ismaaciil samatar oo dhiil kula jira xayawaanka ayaan 2 geed wada guran waxa la yahay shimbiri 2 geed ma wada gurato muxuu ahaa gabayii niyow 2 shirin aan isgeyn jeeb isugu geeyo walee 2 gardaa show kama gura sheeko soo ma ahay waxaan leeyahay war anigu ma aqaano godadleynta iyo gogoldhaafka iyo 2 gardaaqa siyaasadda ma aqaano tan iyo intii aan gaashaan qaaday ee gaariga siyaasadda guudka uga baxay weligay layguma xaman inaan gacan saar la yeeshay 2 garab oo kala gooni ah gelin isku mid ah weligay layguma xaman wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray ninkii hoggaamiyihii reer Singapore I have been accused many things in my life but not even my worst enemy has ever accused me of being afraid
to speak my mind wax walba waa la igu xantay buu yiri noloshaydii laakiin weli la iguma xaman inaan aashay badheeri waayo iyo inaan la boglayn waxaan leeyahay siyaasadda waa ku ceeb inuu ninku laba dheeri kariyo war siyaasadda hal dheeri baa la kariyaa waxaan leeyahay ku soo ururinayaa Axmed Ismaaciil Samatar waan bogaadinayaa waxaan leeyahay Axmed halka ka wadadaalka reer Hilaac oo dhan waan hambalyeeynaya harga kale urur siyaasadeed oo furtayna waan bogaadinayaa waxaan leeyahay waynu u baahanahay urur siyaasadeed oo badan iyo hogaamiyaal badan si aynu u kala doorano saynu dox badan u yeelano oo aan la oran hebel iyo hebel baa lagu qasban yahay aad iyo aad baa u mahadsantahay